السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقف فوتبول شو marka la idin leh soo dhawaada video degdegade kulay waxaan maanta ku soconaayeen ka hadli doonaaba waa hal kelmad oo ku oranayno Gunners horta asxaabtaydiinan ku raahdo raalli ahaada marka koowaad waa marka labaad inaan iraahdo marka Arsenal waa la qaban kari lahay naam teamkoogi koowaad waa ka tageen teamkii ciyaal bay ka dhex buuxiyaan hataa nimankii Liverpool baalka saa u xaabsadayna kaale wax iska celiye yiraahdeen marka sida videogii horeba aan ku mention gareeyay waxaan idhaa Arsenal waxaad moodaa isbedel inuu ka soo socdo laakiin isbedelku naam xawligu ku socda aad buu uga dheereynaya seen moodi Arsenal time ka inay qaadato Arteta already laba koob buu marayaabe Lampard iyo Ole iyo Pochettino iyo dadkii Ingiriiska maalmo intaas oo dhan baa watay كوب كسلاحلا صاحب كي باك تو باك ويمبلي ليفربول او لبا جيرا يا مان سيتي يا تشيلسي او لبدا كوبا uu qaaday ninkaas cunaha qabtay kama noorta loo saxabiyo isaga marka labaad waa in Arsenal taageerayaasheeda loo saxabiyo saaxiibaday waa soo samreen nimanku ya imkana Messi bay soo wadaan be Messi haday keenana maxaa la isku goymanay arinku waa dhamaaday marka ciyaartii baan yar jilaaci doonaa hadii la hayra ciyaartaas oo ciyaar aad u xiiso badan ahayd san moodi horta waxaan islahaa maadaama ciyaaro badan ay kooxo ciyaarin intan la soo noqday sidii horyaalku u dhamaaday in ciyaartu slow noqon doonto laakiin ciyaartu slow ma ahayn waxa qoray slow ha Liverpool baa no saxaabtayda Liverpool waxaan maleynayaa intii la idinka qoray baalka waa cunteen baan maleynayaa halkiini waa ku noqonaysaa soddonkii sanaad haddana iska yar sugaysaan wax sana wax Atletico Madrid sidii sheebay nimankiina waa soo kicilaadeen ga videogeena isha yar marin hadii la hayraado nimankii Arsenal ay qacanta ku dhigeen ciyaarta xaladeeda iyo macaankeeda ay Arsenal taageerayaasheedu u lahayd waa qasab in la sheer gareeyo oo wixii la eego tan la leeyahay inta waa dhibaato soo maaha marka ciyaartu waxay ku bilaabmeen Liverpool saddexdii nin ee la lahaa adduunka ugu fiican horta weerarka ha saddexdii nin baxalka hore soo dhigeen halka Arsenal aanay saddexdii nin soo dhigeen tama anyway saddex nin oo asaasiyaba ma lahaynee la kaseed marna wala fadhiisay marna wala ciyaarsiiyay waa ninka New Drogba noqday Aubameyang Wembley ba haduu arkay la qaban lahayahay ninkaas haduu ciyaarayo nin kale waxba uma sheegayo marka goolkiisa ku bilaabi doona hadii la hayraado maadaama ninkaas yahay ninka gacanta ku haya baasho oo dhan iyo sidii Arsenal u soo dhiseen Arsenal xagga dambe wax ka soo dhisayaan imka kubadii Arsenal 2 ka soo qaaday bilimka kubadda ay kalsoonida ninka ku jirta iyo baaska bayaan loo dhigay baasan caadi ahayn waxaad moodaa saaka inuu soo baxayo kubadana maxaynu ku oran karnaa Henry nacma Fritman ka dad xirantay baashina taa u soo wareejisay mooyaane te wax kale oo qaban karnaa ma jiro midda kale ugu dareynaa anada inaynu saaxiibkeen Black Panther isagana tribute inta uga dhigno inta soo sameeyna waa xalkeeda laakiin baaska eeg ani baaskaas qacayna ka taagay Naxmadu Khayr laba sano dambe sii ciyaaro anu superstar buu noqonayaa baan ku leeyahay balay ku badiis goolashi Henry baa ajaayib intuu Alisson oo kale waa gooladayaasha adduunka ugu fiican gooshaas oo kale in laga dhalin karaa waa yart kubadda xataa mu fartiisa may gaarin intii wareegaysa kubaddaas kan labaad goolkii inta dhalisay difaac markiiba may gelin kubaddaas inay dhalaatay ciyaartaas inay 2-0 ahaatay ahayd yaraanta iyo khibrad la'aanta inkastuu dadaalay laakiin haddana saaka haddana way isaga ninka soo salaxaya kubadda 1 2 3 4 Liverpool difaaca taagan hal nin ba xagga dambe ka soo cararay Arsenal ma moodaa inay Liverpool noqotay Arsenal shay cusbeed nimanka sidii league u qaadeen waa seexdeen lagu yiri waxba soo gasheen maane waxaad moodaa inuu wali ka soo noqonin fasaxi isagu goolashu maana cuni jireen meeheen marka Arsenal halfkii hore horta saas iyada ugu fiicneed halfkii dambe chanceska halfkii hore Arsenal Liverpool chance fiican ba may sameeyeen imka chanceskaas ugu horeeyay markay soo noqotay and then Chanceski waxa ku xiga waa kan goolkii Liverpool bal goolka ay naman waa gool oo iska nasiib Salah xaga shaqo badan buu ka soo qabtay laakiin kubadda gacmaha ku dhacday ku dhac wata
kubaddaasi I think kubadda Arsenal iska difaaci karasay ahayd laakiin cid ay gacan kaga dhacday waa la garan waayay xaggana way u noqotay xaggana way u noqotay dadna laacibkii Liverpool la soo wagtay Minamino ayaa chance hortiisa iska yimid hooyo dhali Luis si xun inaan u eegin David Luis ninkani maanta ciyaarta man of the match baaban inuu siin lahaa nacam sidii Arsenal ay back 3 xagga dambe noqotay dhexdan afar ay u bedeshay ninkii Luis waa soo noqday nacam sidii Conte ugu ciyaari jiray uu ciyaaraya odayaabsa ciyaartiisa marka gacanta la jeegareeyay gacantina maaha wax ka jiraan maaha waa goolka waa taagnaa laakiin Liverpool ma chance kaasoo kaliya iyo kii maana mooyaane wax kale ciyaarta hagaagsan oo la timid ma jirto himka Arsenal 85 Willock inuu xabada dhaliyay ahayd wallahi Roysna soo baxay Arsenal waxaad moodaa wallahi stars gaar uu soo wada nin inay horumar badan gaarayaan Arsenal 2 years hadii wada joogaan oo 2-3 ciyaartooy kale lagu soo diro qaabka Arteta wuxuu wadaa qaran shaqo ku leenay ma naxam Pep Guardiola labaad buu soo noqonay Pep maxaa caawiyay Messi iyo Iniesta iyo Xavi buu mar qura ugu waday midiya Busquets ay teamka iskugu helay Daniel Alves iyo Gerard Piqué naxmintii uu maalinkan isku haysanay laakiin waxaad moodaa inay socoto oo ciyaartaasina Sabrecha ugu dhamaatay rigoorayaashii baa la inoo dhigay rigoorayaasha Alisson waan ka baqanayay walow Martinez ninkani 10 sano Arsenal uu joogaa mana inaan arag isagoo ciyaara laakiin imka Wembley intii uu dhaawacmay Leno waxaad moodaa inuu ninkii soo kacay penalty aad u qurux badan bay haayeen Arsenal waxaad mooday iyagoo ciyaartooyga inteeda badan ee laagay aan ahayn ciyaartooy waaweyn haddana inay ciyaartooy khibrad baasha kula ku takhasusay ay laagayaan qaabka u laagayaan ciyaartina guusha de penaltiyadu laba nin kama wada qoslisay saas Arsenal guusha ku raacday waliba aan qabo in Arsenal ahayd kooxdii uu qalmisay inay guuleysato marka hore ciyaarta gudaheega Liverpoolna waxaan leeyahay waa dadaasheen marka loo eego mustawihiina laakiin meedaan dadaalin because in Arsenal markaba cuntaan bay maadaama teamkini koowaad ku ciyaaraysan oo hal nin oo kaliya ka maqnaa hal nin inaad wax noqotaan ma ahayn marka Arsenal waxaan leeyahay hambaliyo waa koobkii labaad ee qaadaan mudeero kooban oo hal bil ah waa soo socota Arsenal Real Arsenal waxaan idin leeyahay hambaliyo kooxdiina hore mar weyn bay ku socotaa The London is red sida aragtaan intaasina highlights kiray videoga Arsenal intii ku oranay bay ahayd waan ku qasbanay in videogan si degdeg ah u soo diray maadaama shalay saadaashayday ahayd inay Liverpool 2 gool iyo gool ku badin doonto dhinaca kale u wareegtay waliba hadii aan ogaan lahaa Arsenal say ku ciyaaraysay iyo Liverpool say ciyaartooyga ku ciyaarayso waxaan oran lahaa Liverpool goolal badan inta ka badan bay ku badinaysaa laakiin ma dhicin Arsenal waxay tustay inay halkan u joogto inay improvement badan samayso inay tusto inay Arsenal soo laabatay Arsenal Henry iyo Vieira iyo inay soo socdaan baan u maleynayaa marka Arsenal 2 sano una siinaan ku leeyahay sanadkan top 4 ka Arsenal way ku dagaalami kartaa isleeyahay saas waliba de laacibadii ay siibsato dhinaan meesha ku jirin marka Real Arsenal oo hambaliyo aad baad ugu qalantaan videogii xalay karaalahaada leedii waa leedin cunaya waa ag football show idin leh saragti dambe oo xiiso leh